Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wanaagsan daawadayaal, magacaygu waa Maxamed Soomaali. Janalka aad daawanaysaana waa Source Production. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkan waa uu ka duwan yahay muuqaaladii hore insha Allah biidhnillaahi kariim. Muuqaalkan waxaan ku faaqidi doonaa haddii Allah awood la idmo. Sheekooyin ayaanu janalka hore ugu soo gudbin jirnay. Sheekooyinkii ayaan waxaan rabnaa annagoo ka sheekeynayna ama live iyagoo ah aan idin soo hor fadhiisano, maadaama aan markii hore ku codeyn jiray oo kaliya. Sheekooyinka ay ka duwan yihiin kuwii hore maadaama aan ku qaada dhigayo sheekooyin maadeys ah ama ilo qosala. Sheekada ugu horeysa haddaan soo qabto, nin dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa waxa uu iska dhiibay wadankaasi Sweden-ka. Processka marka la isdhiibayana run ahaantii waa dareemi karaysaan waxaa la galaa waxa loo yaqaano line. Marka qof walbana waxaa la weydiiyaa wadanka uu u dhashay ama uu ka yimaaday. Ninkii odayga ahaa wuxuu galay leenkii dheeraa. Waxa ka horeeya marka leenka isaga waa qofka shanaad, afar qof oo ah Kurdiyiin. sidaa daraadeed su-aasha la weydiiyey ayaa waxa ay ahayd kulligoodaba wadanka ay u dhasheen. Ninkii ugu horeeyey baa la weydiiyey wadankee u dhalatay ayaa la weydiiyey. Waxa uu ku jawaabay waxaan u dhashay waxaan ahay wuxuu yidhi Kurdi Ciraaq baan ahay buu yidhi. Kii labaad ayaa isna la guda galay in su-aashii la weydiiyo, waxaana uu ku jawaabay waxaan ahay Kurdi Suuriya ayaan ahay buu yidhi. Kii saddexaad baa isna la weydiiyey isla su-aashii ninkii labadii nin hore la weydiiyey ay ahayd xagee u dhalatay. Waxa uu isna ku jawaabay Kurdi Ciraaqi baan ahay. Ninkii afaraad ninkii Soomaaliya ka horeeyey ayaa la soo gaaray, waxaana la weydiiyey meesha uu ka yimi sidii horeba su-aashu ahayd nimankii horeba la weydiiyey, waxaana uu ku jawaabay Kurdi Iiraan baan ahay. Ninkii Soomaaliga ahaa wuxuu yiri dee dhinacaada kaga darso Kurdidan socota. Qof walba waa wuxuu yiri marka Kurdigana waa hadal iska caadiya, marka nimankaasna waa dhalashadooda saxda ah. Soomaalina waa garanaysaayo isagana ninkiiba dhinac buu ka raacsado. Markii la soo gaaray wuxuu yiri waxaa la weydiiyey isna wadanka uu dhashay ama dhalashadiisa waxa ay tahay. Markaasuu ku jawaab waxaan ahay Kurdi Soomaali. Marka ninka odayga ah wuxuu moodayay magacaasi in la iskaga yeerayo ama dadkan ay iskala baxeen, sidaa daraadeed dhalashadooda saxda muusan aqooneen. Marka maanta sheeko labaad ayaan kusoo ganaanadayaa igana raali noqoda, waan soo badin doonaa haddii aan la idmo. Marka waxay ka shidan tahay dhanka iyo Sweden-ka. Hadda kahor baa isna nin Soomaaliya waxaa la yiri waxa uu soo raacay tareenka wuxuu socday Gothenburg ayuu socday, magaalada Gothenburg ee dalkaasi Sweden-ka ayuu socday. sidaa daraadeed tareenkii waxaa la isweydiiyaa waa idinka arkee ninkii tareen raacay ama waa maqlay waa garanaye waxaa la isweydiiyaa tikitkii ayaa la weydiiyey. ninkii gabar ayaa tikitka baaraysay. gabadhii markii ay soo gaadho waxa ay weydiisay tikitkii ninkii Soomaaliga ahaa. waxa uu tusay gabadhii tikitkii uu haystay. saa waxay ku tiri tag. marka tag af Swedish-ka waxa lagu yiraahdo sheekada qaybteeda dambe ayaan ku faahfaahinaynaa. marka gabadhii waa ay ka dhaqaaqday ninkii Soomaaliga ahaa. sidaa daraadeed isna wuxuu moodayay tag tikit khaldan inuu sito oo iska bax la leeyahay. sidaa waxay la socdaba waxaa la soo gaaray magaalada Gothenburg wadankaasi Sweden-ka ku taala. sidaa daraadeed tareenkii markii uu ka degay wuu ninkii wuxuu isweydiiyay tag maxay ku tiri gabadha adigan magaaladii aad doonaysay lagu keenay. marka ninkii Soomaaliga wuxuu ogaaday maalmo kadib muddo markuu joogay in ay tag tahay mahadsanid. marka tusaale runaantii afka aadan aqoon dhibaatadeeda ayuu leeyahay. wax turjubaanana ma taqaanayo aadan haysan aad iyo aad. marka insha Allah sheekooyinkeena intaasi ayaan ku soo gunaanadeynaa. maanta labadaas sheeko ayaan ku soo talagalay. insha Allah sheekooyin badan ayaan idin soo gudbin doonaa haddii Allah awood la idmo. intaan sheekadan mid lamid ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo amaano Allah. sidaa daraadeed marka ugu dambeyntii waxaan codsanaynaa in channelka subscribe ama rukumasho aad saarato si video kasta aan soo gelino kugu soo gaaro. omateedka gacmaha u fura ayaan idin leeyahay. waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.